cabdishakuur xaaji maxamed muuse heersare oo ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgashay magaalada Hargeysa waxa uu sheegay in 7 bishan September 6 nin oo watay baabuur ay ku dhajisan tahay taarikada dawladdu oo ka cabanayay aragti qof ahaan aan isagu garanayn uu qoraalka ka baahiyay mareegaha internetka wasiirka arrimaha gudaha ay ugu yimaadeen goob ka agdhow xafiiskiisa shaqo halkaas oo ay xoog ku saareen baabuur ay wateen isla markaana ay u ka haysteen deegaanka Arabsiyo oo dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Hargeysa aan arkay meeshan ugu soo tilmaamay yimaadeen ayaa arkay in nimanku wataan gaari GT ama gaari dawladdu leedahay oo lambarka dawladda leh oo gaari cusub markan ku soo dhawaaday nimankii baan cidba ka garan waayay dad waxay ugu khasbeeneen gaariga fuulo waan ka diiday waxaan ku yiri maxaa jiray sheega gaariga ma fuulay 2-3 jeer bay ugu celiyeen waxay deedna isku dayeen u soo degaan oo ii sheegan wixii jiray xafiiskaaga nagee waxaan ku yiri waxa jiro horta ii sheega de aan wada hadal leh adu marka dambe waxay la soo baxeen waraaq ku qoran yahay article la galiyay oo shabakada Odwin News oo leeyahay adiga qoray adaa galiyay article-ka waxa dabcan de madaxda waa la dhaleeceeyay inta badan article lagu dhaleecinay waa wasiirka arrimaha gudaha Cali Warcade halkii bay ka bilaabantay deedna waxaan ku yiri Chinese si aan soo baaray cidii website-ka gelisay iyo sidii loo geliyay halkii laga soo qoray waxay goran kuma siineen ama hadda qiro ama cidii gelisay noo sheeg marka nimanku waa 6 nin waxaan dareemi karay in qaar ku jireen boolis dharcadi waan dareemi karay waayo kelmadaha isticmaalayna ah ninku waa maxbuus saacada la bilo maxbuus moobilkana ka qaad gaarigana saar waan dareemay faqad sidii maxbuus baa lay qaaday waxa la geeyay gurigii wasiirka hortiisa la igu sii hayay gaarigii la bedelay sida gaari kala la soo saaray marka inta waxaan ku qancinayaa war hawshan ma dhameeyaa maye nooge ama adiga hawshan waqtiga u qoolan ama cidii waxaan samaysay marka waa niman yaani u abaabulna inaani qofna waxba ka dhageysan inaana iyagu in toodu ku soconayso oo inay sidoo doonaan yeelayaan marka waxay u kalifteen ninkii la raadiyo bal arrintan saan u dejinade arrin aanan shaqaba ku lahayn oo meel iga soo gashaan ogeyn oo xitaa website cid gelisay aan ogeyn oo Chinese leesi way xitaa inaan hubiyo si wuxuu jiraan tii waxay kaliftay marka inaan ninkii la raadiyo ninkii waan la hadlay website kala wuxuu guri magaalada waan ka maqanay oo meel Arabsiyo u dhow baanu si soconaa wuxuu guri nigi Arabsiyo anoo sidii la yahayo Arabsiyan tagnay ninkii waan la hadlay moobilka xitaa waa la iga hayay markaan isaga la hadlay moobilka la dhiibaya haddana waan la hadlay wuxuu yiri qorshe waan bedelay waxaan tagnay meel yara Garbis marka kooxdu wada socdeen tiibeedan yar naga dabagee marka inta waxa ku leeyahay war waxba israfsheynine Cali Warcade waan aqaana wasiirka wada shaqeyn ma leenahay qoraaladu ii soo diri jiray website-ka lambarkaygu haya hadduu wax dhibsanaya anigu la soo hadlaha xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Solja Maxamed Rashiid Maxamed Farax iyo mas'uuliyiin ka tirsan xisbiyada mucaaridka ayaa cambaariyay dhacdadani afduubay in gaariga wasiirka lagu afduubay in 8 saacadood la haystay marka daarin foolxun weeye waxaanu kala warkeeda haynaa oo aan runtii media ku jirta in wasiirka arrimaha guduhu laga duubay isagoo u hanjabaya wariyaal oo leh libaaxyadaydan idin siin doona idinku qadayn doona bashalay ka dhacday oo halkan aan si aad iyo aad u cambareynna ka xisbi ahaan oo falkaas oo ah fal ku cusub Somaliland iyo saaxadaba kaasoo loo aanaynayo inuu ka dambeeyay wasiirka arrimaha guduhu baranna falkan fooshaxun ee lagu la kacay wariye heer sare wasiirka arrimaha gudahana ma ahayn in uu cid ama qaraabadiisa eheladiisa afduubaan geesta kale wasiirka arrimaha gudaha Cali Maxamed Warcade oo arintan ay warbaahintu wax ka weydiisay ayaa hadal kooban ku sheegay inuu baaritaan ku sameeyo arintaasi waxa weeyaan arintan ku sheegay waa taawtan waan baaraya waxa yihiin dabadna ay kaalaan dhacdadan ayaa noqonaysa mid ku cusub warbaahinta ka howlgashay guud ahaan saxaafadda Somaliland Khalid Xabsi Kalsan TV Hargeysa